sida aan hore u shaacinay isbuucii hore wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland waxay la wadaagaysaa ganacsatada reer Jubbaland iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda Jubbaland ayaa shaacisay in toddobaadkan la qaban doono bandhigga ganacsiga Jubbaland kaas oo ah madal muhiim ah oo lagu soo bandhigayo adeegyada hal-abuurka iyo wax soo saarka ganacsatada reer Jubbaland. agaasimaha guud ee wasaaradda mudane Idriis Xasan Maxamuud ayaa sheegay in inta lagu jiro bandhigga la abaal marin doono 12 ganacsade oo yaryar kuwaas oo lagu dhiirigelinayo dadaalkooda laguna taageerayo horumarinta ganacsigooda. waxa uu intaas ku daray in barnaamijkan uu qayb ka yahay istaraatiijiyadda wasaaradda ee lagu kobcinayo ganacsatada yaryar laguna furo fursad ballaaran. agaasime Idriis Xasan Maxamuud ayaa xusay in tallaabadan ay si weyn u xoojin doonto xiriirka u dhexeeya wasaaradda iyo ganacsatada kuwaas oo door muuqda ka qaata kobaca dhaqaalaha dowladda. wuxuu sheegay in bandhiggu uu sidoo kale u yahay fursad ganacsatada ay ku helayaan macaamiil cusub isla markaasna lagu baranayo adeegyada iyo wax soo saarka ay hayaan. bandhigan ayaa la filayaa inuu noqdo mid dhiirigeliya hal-abuurka, suuq-geynta iyo isdhexgalka ganacsiga isaga oo si gaara faa'iido ugu yeelanaya ganacsatada yaryar ee u baahan taageerada muuqata iyo wacyigelinta horumarineed. ugu dambeyn, agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga Jubbaland ayaa warbixin dheer ka bixiyey barnaamijkan isagoo carabka ku adkeeyey inuu yahay mid muhiim ah oo kor loogu qaadayo kobaca dhaqaale, shaqo abuurka iyo iskaashiga dowladda iyo ganacsatada gaarka loo leeyahay. wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland waxay la wadaagaysaa ganacsatada reer Jubbaland iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaan in maalinta Talaadada iyo Arbacada si gaar ah 11 iyo 12 bishan November ay wasaaraddu ku qabanayso bandhigga ganacsiga Jubbaland ama gaar ahaan magaalada Kismaayo oo lagu qaban doono hotelka Agan ee magaalada Kismaayo oo runtii shaqadii hadda ay ka socoto ganacsatadina ay ku diyaarsanayaan alaabihii iyo adeegyadii ay soo bandhigi lahaayeen. bandhigga ganacsiga labadaas maalmood waxaa kaloo dheer maalin kale oo siyaada ah oo wasaaradda ay u qabanayso ganacsatada yaryar oo bilihii lasoo dhaafay soo gudbisanayay fikradaha ganacsiga. ganacsatada yaryar oo weliba u badan haweenka tartan loo qabtay oo ku saabsanaa fikradaha ganacsiga ku tartameen 12kii guuleystayaasha ahaa 6 kaalinta koowaad gashay 6 sekretar baa lagu kala tartamayay iyo 6 kaalinta labaad 12 qof oo ganacsatada yaryar ka mid ah oo tartankaas ku guuleysatayna maalinka u dambeysay waxaa lagu guddoonsiin doonaa abaalmarin isku jirta shahaadooyin iyo weliba alaabo agabyo loo soo iibiyey oo lagu abaalmarinayo. marka waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto fursaddan inaan ku xasuumo inta hadda aan weli soo confirm gareyn ganacsatada baa soo xaqiijiyay kasoo qaybgalkooda oo soo diyaargarowga ku jira inta dhiman iyo bulshada reer Kismaayo inay kasoo qaybgalaan intuba ganacsatada dhimanna ay ka faa'iideystaan fursaddaas bandhigga sababtoo ah bandhigga ganacsigu wuxuu u leeyahay faa'iidooyin badan ganacsatada. waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah oo bandhigyada ganacsiga laga faa'iido waa fursad uu ganacsaduhu kusoo bandhigo oo ugu soo bandhigi kara macaamiishiisa iyo weliba macaamiil cusubba alaabta iyo productska uu gado alaabtiisa iyo adeegiisa. adeega iyo alaabta ganacsada walba uu ka shaqeeyo fursad uu kusoo bandhigi kara weeye. sidoo kale bandhigga ganacsigu waxay u suurtagelisaa ganacsatadu inay helaan macaamiil cusub iyo sidoo kale xiriir inay la sameeyaan ganacsatada kale, ganacsatada kuwa weyn, ganacsatada yaryar kuwa weyn inay isbartaan, ganacsatada kale nooca adeegyada kala duwan iyo alaabaha kala duwan haya inay isku bartaan, xiriir samaystaan, taasoo ka caawinaysa balaarinta suuqooda iyo iskaashiga ganacsigooda. waxay sidoo kale bandhigyada ganacsigu kordhiyaan fursadaha ganacsigu inuu helo ganacsaduhu fikrado cusub oo uu bartaas ka barto casharo cusub iyo fikrado cusub, isbeddel cusubna uu la imaado suuqa iyo weliba aqoon kororsi ku saabsan tartanka iyo baahiyaha macaamiisha. bandhigga ganacsigu wuxuu kaloo ka caawinayaa ganacsatada sidoo meel walba ay joogaan markii bandhig ganacsi la sameeyo inay xaqiijiyaan iibka alaabta mararka qaarkood iyo adeegyada marka goobta bandhigga laga helo macaamiil xiiseynaysa.
meesha bandhiggu ka dhacaya dad kasoo qaybgalaya bulshada imaanaysa qaar ka mid a bartaas isla goobta waxay ku iibsanayaan alaabtii ganacsatada soo bandhigeen iyo adeegyadii ay soo bandhigeen intaba oo macaamiil cusub buu qofku ka helaya meeshaas. Bandhigyada ganacsigu waxay sidoo kale xoojiyaan sumcadda iyo kalsoonida macaamiisha ay ku qabaan ganacsatada ay ku qabaan markii ay bandhigoodii iyo ay arkaan iyo sida mataqaanaa ay usoo jeediyeen. Marka guud ahaan bandhigga ganacsigu waa madal muhiim u ah kobcinta, ballaarinta iyo horumarinta ganacsiga iyadoo la helayo fursado cusub iyo isdhexgal toos ah oo wax ku ool ah oo lala yeesho macaamiisha iyo sidoo kale ganacsatada kale. Sidoo kale maanta waxaa noo dheer inay aaladda cusub oo teknolojiyadda looga faa'iideysanayo oo documentary iyo videos iyo baraha bulshada cid walba ay kasoo qaybgalayso. Taasi waxay kobcinaysaa xataa inay ganacsiyada meesha kusoo bandhigaya ay u noqoto marketing iyo suuqgeyn ay ku helaan xataa macaamiil ka baxsan magaalada Kismaayo oo meelo kale markay daawadaan adeegyada iyo alaabaha ay iibinayaan kasoo dalban kara waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa intaba. Marka bandhigga ganacsigu faa'iidooyinkaas oo dhan buu leeyahay kuwa ka badanba. Waxay wasaaradda ganacsigu la shaqeynaysaa arrintan kala shaqeynaysay maalmihii u dambeeyey rugta ganacsiga Jubbaland, bangiyada ka yaal ka furan magaalada Kismaayo si gaar ah iyo ganacsatada qaybo badan oo ka mid intaba oo kasoo qaybgali doona maalintaas haddii la yiraahdo, iyadoo maalinka u dambeysana aan rajeynayno inuu nagala soo qayb galo ama madaxweynaha ama kusmaha madaxweynaha markaas haddii madaxweynuhu joogin inay abaalmarinta guddoonsiiyaan ganacsatada yaryar ka heshay ku guuleysatay tartanka fikradaha ganacsiga Business Ideas Competition oo runtii asalkiisa barnaamij aan uga mahad celinayno nagala shaqeysay hay'adda GIZ iyo iskaashiga Jarmalka qaybta fikradaha ganacsiga oo ganacsatada yaryar loo sameynayay inay ku tartamaan. Aad baan uga mahad celinayaa intii abaabulka hawshaas nagala qayb gashay ganacsatada kasoo qayb gashay tartanka.